taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland gaashaan sare Maxamed Cali Yuusuf oo ay weheliyaan saraakiil sare oo ka tirsan laanta socdaalka ayaa waxa ay kormeer shaqo ku soo mareen deegaano ka tirsan gobolada galbeedka Soomaaliland taliyaha iyo saraakiisha kale ee wehelisa waxa socdaalkoodan ay ku mareen degmooyinka Alle Baday iyo Wajaale halkaasi oo geesta kalena laanta socdaalka Soomaaliland ay ka soo fureen xafiisyo ay ugu tala galeen sidii aafada tahriibka wax looga qaban lahaa isla markaasina halkaasi ay goobjoog ugu ahaan laayeen saraakiisha laanta socdaalku si ay xal u helida amuurtaasi wax uga qabtaan taliyuhu intii uu degmooyinkaasi marayay waxa uu dad tahriibayaal ku wareejiyay dhigiisa wadankaasi Itoobiya iyadoo oo tirada dadka uu ku wareejiyay ay ka badnaayeen ilaa iyo 100 qof oo Itoobiyaan ah oo u soo tahriibay dhinacan Soomaaliland isla markaasina xukuumadda Soomaaliland ay dib u celisay taliyaha laanta socdaalka ayaa geesta kale waxa uu kormeer ku soo maray degmada Boorama halkaasi oo uu kulamo kula yeeshay mas'uuliyiinta kala duwan ee degmadaasi mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolka taasi oo salka ku haysay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatadaasi tahriibka isla markaasina mas'uuliyiinta dawladda iyo dadweynuhuba ay gacan ugu siin lahaayeen laanta socdaalka taliyaha laanta socdaalka ee Soomaaliland gaashaan sare Maxamed Cali Yuusuf waxa uu geesta kale digniin u diray gaadiidleyda kala duwan ee isaga goosha wadamada Itoobiya iyo Soomaaliland waxana hadaladiisii kamid ahaa muhiimada ugu weyn ee aan ku soo kaciteen halka waxa weeye si aan halkan uga fureen xafiiska waaxda socdaalka ee degmada xafiiskaas xitaa hadii aan ugu qasbayso inaan xafiisyada dawladda mid ka isticmaalo amba mid kira agalo waxaan ku soo kaciteen xafiiskii rasmiga ah inaan maanta halkan ka furo waxa kale oo gudoomiyaha degmada iyo degmada uu disanaya dhulkii aan xafiis ka dhis lahayn mustaqbalka isagana in loo calaamadiyo labada qodob laakiin aniga ciidankaygu waxay ka hawlgalayaan subaxa sabti halkan kuwa hore tababaraa kuwiinana waan idin tababari sanadka cusubna wixii alla idme ee socotada laga qaadan karo codsigiina waan tixgelinaya aaga allay baday degmadan Faraweyne iyo degmada allay baday xarun amba aglay baday ha noqoto amba Faraweyne ha noqoto Kabtan Nuuruddin ba halkan madax ka noqon doonay maanta laga bilaabo waxaan idinku mahadnaqayaa warbixintii joogtada ahayd ayaan ka jawaabayaa in aan dalka ka ilaalino wixii sharci darro ku soo galay oo hawsheedu tahay nolol xil saaray waxaan idinka codsanayaa taliyaha ciidanka booliska halka jooga ka codsanaya in baabuurta ka hawl gasha arrimaha liiskooda iyo nambarkooda loo ururiyo iyo cid leh meel kasta ay joogaan marka lagu qabto si maxkamad markiiba toos loo gooyo dhammaan halkan waxaan warbaahinta uga gudbinayaa baabuurta ku adeegata inay keenaan dadka tahriibayaasha ee u badan noohayaasha iyo shaambo xayraanka la sheegayo waxaan idin ballan qaadanayaa baabuurkan ku qabano tira aanu aragnay inay macquul tahay inay tahriibinayeen in baabuurtoodaas aanay ka hawlgali doonin degmada iyo aaga maxkamadda aan ku saari doono waxaan sharciga wadisanaa in la wareego baabuurta soo wada hogaaminaysa tahriibayaasha iyo dadka aan sharciga ahayn dalka oo nooc walba iman kara maanta maadaama aan joogno gobol xasaasiya nabadgelyaduna ay tahay mid la iska ilaaliyo teen ku caanamaalnay tahay nabadgelyada wixii nabadgelyadeedu wuxuu dhimay ama lagu soo dhex dhuuman karo inaanu la tacaalo